كسر ومركب ورا تلفزيون اس بي سي هذه بدكم هذا وانا دوه qaar ka mid ah baarlamaanku waxa uu qabtay kalfadhigaas waxa sheegtay in ay xilka kaga qaadeen madaxweyne ku-xigeenka Cabdul Cagable maxay tahay sababta aad xilligan xilka uga qaadeen madaxweyne ku-xigeenka mase jira qodob dastuuri aad u adeegsateen xilka qaadistiisa bismillahir rahmaanir rahiim way jirta bisha labadeedii inaan kalfadhigayagii caadiga ahaa furanay isla markaana 12 xubnood oo kamid ah golaha baarlamaanka ay keeneen mooshin lidku ah madaxweynaha ku-xigeenka qodobadii ku qornaa dastuuriga ahaa waxaa kamid ahaa in madaxweyne ku-xigeenku uu qaatumo dalka qaatumo ka baxay 24 December uuna sanadkii hore uuna ku soo noqday 30 July awoodda uu siinayo waqtiga uu siinayo dastuurku inuu ka maqnaan karana waa 45 casho oo dheeri wuxuu maqan yahay 6 bilood iyo 7 bilood iyo ziyaado maqnaan markaa waa gartay sidaasoo qodobkaasi kamid buu ahaa waxaa kamid ahaa mar hore oo uu magacaabay wasiir uu isagu magacaabay iyo wasaarad aanu awood u lahayn oo taasina ku takriifal bay ahayd wuxuu caadaystay oo dhaqan ka dhigtay inuu la soo dagaal galo dadka mucaaradka ku ah maamulkiisa isagoo magacii iyo taakalkii xukuumadda khaatimo wata qodobo badan oo caynkaas baarlamaanku wuxuu u gacan taagay in uu kalsoonida kala noqdo iyo in kale xubnaha golaha fadhiya 22 xubnood bay ahaayeen baarlamaanka marka baarlamaanka guudna uu yahay 32 18 kamid ah وحضيسي إن حلك اللي قاضو. قار كم ذا حل بعنا أو سيدو كلا تابع سن مدحون كحجينك سيدو كلا واحد شجعنا كالفرد قبتين أو حلك إذا كقاعدين أديكوا قدوميها برلمان كيسيدو كلا مدحون على خلي سيدو أركت هذه قلنا ضارتها. برلمان كيجو لبا كورن بدنا أو حلك اللي جاي ولا قاعد كرو والله بيصدر حبنا برلمان كيجو لبي الله بعدين كم ذا بعد كالفرد كفردي شيل قدوم كي برلمان كفردي عيد كده أو شيل قبان كتلا أو ميل تشوفتي ما تشوفتو وحنا كم تيران ويشان شخصي وكم لها اللي بعنا أو حاجة وين كحجين كراعي نادي بالكذا اللي مركز الله توفرت كبحي اللهم المستعان يجلب توري أمر دي سنويان كالفرد البرلمان كبحين وحي لا تقال كلام وحلتكو أمام في خاتمه يجانا واد كور هيسامان تكفتي وشاي تاعي يالله قاضي حسانات دي برلمان نمو أو قضب كم بذا قضب بدل لجوا أيو شروطها لجوا أيو اللي بعد ماذا أبدوكو أبوركو حيسي إسكودير الجروبيتي يو حياها كانت تجيبنا يوم ذا قاتمو يا لو أديك سدي جالسان حين كلا قاضي حين كلا أو ديش الجدومي اللي أنا الجدومي الجدومي كحيلة لو أشوفين عدة كلا أنا وشيك قبان كلا ما تشوف وأوشاسنا وحوي قولي الدجاج كبوهد يا الله سوبر فريسي ماشي يويل قبض قاضي ما قرر يهودا سوى أول يعني ساعة أنصح هاي وترين لكن أنا مثلا قدومي سيدا الله سبحانه وررك ورباهنتنا كذا والله waxa shirka gudoominaya gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka shirka ninka lagu magacaabo sidoo kale xildhibaano 22 sida ay sheegeen ba meesha fadhiyay oo kooran bay ahaayeen labadiina qolo keeba la oranayaa muu sheegayaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka khaatumo waad ka helaysaa YouTube-ka Abdikariin Askar Jaamac baa leeyahay mudane shirtag xildhibaan shirtag waxaa xilka gudoomiye ku-xigeenimada labaad lagaga qaaday balle cad meesha la yiraahdo muddo sanad iyo siyaado ah uu ka sii maqnaa agartay dhawaan wada hadalla ayaa la furteen Soomaaliland laba jeer ayay dib u dhaceen madaxweyne cali khaliif wuxuu sheegay inaad ka baxaysaan hadii maalin dib loo dhigo laba jeerna dib loo dhigay cid hadal haysaana wali ma jirto go'aankii maxay iska bedelay idinka wada hadallada Soomaaliland iyo Khaatimo muddo badan bay soo socdeen meel fiican way gaareen kaliya shir baa naga baaqday shirkaasna sababtiisa waxaa lahaa maamulka Soomaaliland xubnaha ka mid ah baalaha go'aan baan u qaadanay aanu u dhannahay oo ah bisha 10keeda June inuu dhaco in shiraan isugu nimaadna burco intii aanu bixin bay keegood iyagoo aad
bayaan soo saareen ama warbaahinta ka hadleen oo ay sheegeen inay dib u dhigeen awoodna uma laha inay keligood dib u dhigaan waa in hadduu laba dhinac yahay labada dhinac iska raacsan tahay oo iska waafaqda oo ka wada hadasha oo dhibaata waaba iman kartaa laba dhinac waa sheegan karaa lasiimadoo la sheego markaasna go-aan dambe la qaato laakiin cid gaara oo iyadu markay doontana go-aan qaadan karaysa markay doontana fulin karaysaa ma jirto sidaas darteed waxaanu kala wada hadalnay oo ay nagala soo hadleen arrintaas inay qalad tahay oo ay khalad xaggooda tahay kadibna waxaanu ka dhignay in ay annaga de ay nagala hadlin warbaahin bay mariyeen ay apology iyo raaligelin mariyeen warbaahinta waana naga sugaya insha allah bismillahi karim madaxweyne cali khaliif markii wada hadallada ka furmeen caynaba ay tageen isagii waftu hogaaminayo waad ka soo horjeesatay oo subaxnimadii ayaa shirsi aad qabatay oo aad sheegtay inay tahay khiyaamo qaran misna dib baad ka taageertay adiga qudhaadu labada jeer keebaad saxsanay labada jeer markii dambaan saxsanaa marka horena bulshada deegaanka joogta waad og tahay dadka colaamo badan baa soo maray dhibaatooyin badan baa soo maray wax badan baa aada iyo aada cidii la yidhahdo somaliland bay aaday ama aragtay baa dhibaato badan ka taagnayd markii ummadii kacday oo weliba dad maamulka somaliland laftiisa iyo ka puntland ba ku jira ay adeeg badan ka galeen isku dhac baan ka baqay aada baan nabadgelya darteed baan hadalkii hore u yiri kii dambe ee aan sheegay kii sharciga ahaa buu ahaa gudoomiye meel la odhan karin wadahadallada habeenka caynaba la tegay qayb kamaad ahayn markii dambe waxaa lagugu qanciyey inaad ka qayb geshid oo sida dhacdayba aad tagtay wadahadalladii ka dhacay Ethiopia miyaa la odhan karin adiga qudhaadu dantaada ayaad ka dhex aragtay kama arkin dan ii gaara oo ku xidhnayd ma jirto danta gaar inaanta guud ka hormariyaana aan ku dhaartay golayna ahayd waa dhamayn waanu u codaynay golayaga baarlamaanka iyo golaha wasaaradaba waanu ka wada hadalnay madaxweynaha waxaanu goor ku siinay iyo wada hadalka waan gartay maamulka khaatimada dastuurkiisa waxaa ka mid ah in la adkeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ayna muqadas tahay Somaliland baa wada hadal la furteen ma idinka ayaa ka tanaasulay midnimadii ummadda Soomaaliyeed mise Somaliland baa ka tanaasulay goonistaagii Soomaaliyeed ay ka gooday marka wareysa waa runtahay qodobada ee dastuuriga mid kaliya ma aha dhowr iyo toban bay ku qoran tahay in ummadda ka khaatimo ay kamid tahay maamulka ummadda Soomaaliyeed in ay midnimada ummadda Soomaaliyeed u dhisan tahay oo loo aasaasay sida ay tahay annagu hadda wadahadal baan ku jiraa dana laga dhexeeyo aan Soomaaliba loo helin baa jirta oo dil ah oo dhaca oo dhulkayga ay haystaan waxaan aada iyo aada uga yaabanahay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtada cid waliba cidda ku xigta way la hadlaysaa ama dawladda dhexe ha ahaato ama caalamka ha ahaatee waan gartay gudoomiye garaadka guud deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn Garaad Jaamac Garaa Cali wadahadalladii u dambeeyay go'aamadii ka soo baxay waa uu ka hadlay waa una qaadacay wuxuuna sheegay inaysan u cutamin dadka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ismada badankeedii waa idinka soo horjeedaan mudaharaada ayaa ka dhacay Buuhoodle la idinkaga soo horjeedo shalay u dambeysay reer Buuhoodle waxay taageereen madaxweyne ku-xigeenka miyaa la odhan karin idinka qudhiina ayaa u baahan inaad iscasishaan oo aad kuraasta banaysaan marka u horeysa warna uu ka hadlay golayaal bay khaatimo ka kooban tahay 3 golo ah waa golaha sare dhaqanka golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka cid waliba shaqeyleeda wixii masiiri ah ee dalka iyo dhulka iyo dadka ku saabsan hajintooda xukuumaddu wadahadallo way soo degi kartaa wax kastoo heshiisa ay soo bashoorey waxay keenaysaa baarlamaanka wixii masiiri ana ansixintooda waxaa leh golaha sare dhaqanka iyo golaha baarlamaanka waxaa tahay gudoomiyihii baarlamaanka tahay waxaa in badan saan u wegeen muddooyinka u dambeysay uu khilaaf u dhexeeyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa adiguna gudoomiyihii baarlamaanka tahay waxaad la safatay madaxweynihii miyaan ahay inaad dhex u noqotid madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa miyaan la odhan karin waxaad jebisay qodob dastuuriya aad cid gaara la safatay waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka haddii khilaaf dhex maro marna si sharci ah baa loogu marna si maslaxada anigu lama safo madaxweynaha waxaan la saftay sharciga 3 jeer oo horena waxaan ku keenay apology markii uu dembiga yeeshay apology bixiyay madaxweyne ku-xigeenka dembiyada ka dhacay khaatimada waxaan aada iyo aada isleeyahay waxay ugu badan yihiin dhinaca aada iyo aadna waxaan isaga xil saaray in aan dhibaato maadaama maamulkaygu xurdi yahay maadaama asruufo badan naga xeeran yihiin
inaan hadalkayga soo bixin. heshiiska Somaliland la galaysaan muxuu yahay muxuu noqon karaa heshiiska Somaliland la galaysaan meelaad ku biirtaan been Somaliland ay deegaanadii ka baxaan wali heshiiska dadka madow badan ka jira muxuu noqon karaa heshiiska rasmiga ah Somaliland la gali kartaa ujeedadii Soomaaliya anagu danta aan leenahay waxa weeye dhibaatooyinkana dhex yaala iyo duruufaha nagu xeeran wada hadallo dad bay naga haystaan dad baa dhintay dad baa ay laayeen xirxireen wax kasta ku sameeyeen waxaanu doonaynaa sabab ilmaha iyaga yar maanta adoonka ah ama hooyada asayasida ee dhinac walba joogta inaanu ubadka dambe ugu talino nabadgelyo iyo caafimaad iyo deganaansho